waxaan ogaaday inaan hees wax samayn karo weliba waxaa iiga farxad badneyd marka inta wax sameeyo aan isiraado haddana iska xarey waxaan wax qaadanahay ma leh haddana sameeyo haddana iska xarey yaa maalinkii dambe waagii dambe waxaan kusoo aaday waqti aan aniga mas'uul ahaa oo layga rabay inaan wax diyaariyo kulanti wacan daawadayaasheena qiimaha leh ee ku xiran barta aan YouTube ku leenahay ee Badda Cas Media oo aan had iyo jeer idin kugu soo gudbino dhacdooyinka maalinlaha ah gaar ahaan kuwa ugu xiisaha badan oo aan warbixinada kaga soo sameeyno arrimaha bulshada iyo sidoo kale barnaamijyo madadaalo ah warbixintan oo aan hubay in dad badan oo idin kamid ah si weyn ay ula yaabi doonaan waxaan idin kugu soo gudbin doonaa fanaan noqday al-shabaab waa arrin la yaab leh waa adduunyo dhinac u foorarto waa filimkii Jaani Dushman yaa la aamina ayay sheeka joogtaa dhawaan ay ahayd markii la arkay macallinkii dilaaga ahaa oo ka soo muuqday TV-ga qaranka haddana waxaa soo baxay war kale oo sheegaya in qaar kamid ah fanaaniinta reer Muqdisho ay yihiin al-shabaab fanaan kamid ah ayaana arrintaasi qirtay walibana isaga afkiisa uu ka qirtay in uu yahay sargaal al-shabaab ah haddaba sida arrintan ay u suura gashay iyo sidoo kale xogtan dadkii bixiyaba intaan idin soo gudbin waxaan idinka codsanayaa channelka haddii aad ku cusub tahay in subscribe aad noo saarto sidoo kalena gabdheelka aad furato si mar walba aad u hesho warbixinada iyo barnaamijyada xasaasiga ah aan halkan soo gelino aan ku bilaabay xogo la helay ayaa waxay sheegayaan oo ku saabsan fanaaniin dhowr ah oo ka tirsan waaxda fanka gobolka Banaadir in la xiray kuwaas oo la sheegay in qaarkood ay ka tirsan yihiin al-shabaab xogtan ayaa waxay tibaaxaysaa in fanaanka lagu magacaabo Abshir Gaaran Axmed oo xog hayn u ahaa agaasimaha waaxda fanka ee gobolka Banaadir iyo Shamsa Cali Macalin iyo fanaaniin kale oo fara badan in laga soo qabtay guri ku yaala degmada Boondheere ee gobolka Banaadir xilli howlgal ay wadeen ciidanka ammaanka xogta ayaa intaas waxay ku dareysaa in baaritaan dheer oo hay'adaha ammaanka ay sameeyeen ila fanaanka Abshir Gaarane uu qirtay inuu ahaa sargaal ka tirsan ama sargaal sare oo al-shabaab ah taasoo dad badan oo aan anigu ku jiro fajiciso ay ku noqotay waxa uuna u qaabilsanaa sida la sheegay qaybta canshuuraha ee gobolka Banaadir Gaarane ayaa waxa uu sheegay inuu ahaa sargaal sare oo ka tirsan qaybta maaliyadda ee gobolka Banaadir ee al-shabaab waxa uu si gaar ah u qaabilsanaa sida la sheegay bixinta mushaaraadka dhalinyarada ka tirsan al-shabaab ee gobolka Banaadir iyo bixinta lacag la siiyo ee shabaabka wax dila iyo sidoo kale kuwa kale oo iyagana keena xogo muhiim ah oo ay u baahan yihiin kuwaas oo ninkan uu qaabilsanaa in lacag uu siiyo sargaal ka tirsan maxkamadda qalabka sida oo arrintan si hoose uga hadlay ayaa waxay wararku sheegayaan inuu shaaciyay in ninkan hadda wareysidiisa ay socdaan sidoo kalena bulshada loo soo bandhigi doono dadka qaar ay xogtan sida weyn ula socda ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in fanaaniin kale oo la shaqeeya Gaarane la xiray balse aysan jirin wax cadeyn ah oo lagu helay ilaa hadda iyo qiraal ay sameeyeen balse ay ku socoto baaritaan kale oo dheeri ah si loo ogaado in ay la shaqeyn jireen shakhsigan fanaanka ah ee Abshir Gaarane oo arrintiisu dad fara badan ay la yaabeen wararku waxay intaas ku darayaan in ninkan uu in muddo kooban ah madaxa maaliyadda ee al-shabaab u qaabilsan gobolka Banaadir uu ahaa balse bilo kadib laga qaaday xilkaasi waxa uuna xilkaasi u hayay si ku meel gaar ah sida xogta aan helayno ay sheegayso arrinta dad badan ay rumaysan wayeen ayaa ah in fanaankan Abshir Gaarane ee hadda lagu soo eedeeyay ama qirtay inuu yahay al-shabaab in ay jiraan heeso hore ugu looqeeyay sidoo kalena uu ka tirsanaa fanaaniinta la shaqeysa dawladda waxa uu qaaday heeso kala duwan kuwa jacayl ah iyo sidoo kale kuwa wadani ah heesta dadka badan ay ku xusuustaan ee inta badan baraha bulshada sida weyn loogu wadaagayo waa hees uu qaaday calanka buluuga ah ee Soomaaliyeed ama calankeena cawaale oo hees macaan badan uu qaaday marka aad dhageysanaysan aad dareemaysid wadaniyad iyo sidoo kale qiiro fara badan waxaas dadku filwaay ku noqotay in fanaankii shalay calanka u heesayay maanta uu yahay al-shabaab taasoo su'aal weyn dadku ay ka keeneen iyagoo ilaa hadda la yaaban qaar waa ay aamin ilaayihiin arrintan
balse waxay xogta tibaaxaysaa in arrintan ay tahay mid jirta dhawaana la filan karo in lasoo fariisiyo ama warbixin looga soo sameeyo TV-ga qaranka sidii horeba u dhacday. المونو على كيغا كان كنت بقادنو على كيغو sidoo kale xogaha la helayo ayaa intaa waxay ku darayaan in ninkan uu soo farmuuqay ama uu soo sheegay macallinkii dilaaga ahaa ee Ilkacse kaasoo dhawaan ka soo muuqday TV-ga qaranka. hay-adaha ammaanku waxay sheegeen in gobolka Banaadir ay dhex ceegayaan ama ay ka dhex buuxaan shabaab badan oo u baahan in aad iyo aad looga taxadiro. qaarkood waxay ku taliyeen in gobolka looga qaato go'aan adag dadka sida weyn looga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin falalka amni darro ee Muqdisho ka dhacay ama ka tirsan Al-Shabaab. arrintan ayaa waxa ay la yaab iyo ama ka ku noqotay dadka reer Muqdisho oo hadda sheekadu waxa ay ku soo lug yeelatay fanaaniinta. dhawaan ay ahayd markii la arkay macallin arday farbadan wax u dhigayay caan ka ah Muqdisho oo qirtay inuu yahay shabaab waliba sir farabadan bixiyo. sidoo kale waxa jira dad lagu raad joogo ilaa ay hadda laga shakisan yahay arrinta Muqdisho ka taagan. hadda waxa ay tahay yaa la aamina oo dadku ay isweydiinayaan oo ay ku sheekeysanayaan haddii fanaankii shabaab uu yahay macallinkii shabaab uu yahay yaa la aamina ay sheeka taagan tahay oo baraha bulshada ay dadka arrintan si weyn iskula dhex marayaan. arrinta xasaasiga ah ee xiisaha badan ayaa ah in tan iyo markii la galay xarunta maamulka gobolka Banaadir ee qaraxa lagu weeraray halkaas uu ku geeriyooday gudoomiyihii gobolka ahaana duqii Muqdisho Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow. hadda ay socdaan baaritaano weyn oo lagu hayo shaqaalaha ka shaqeeya gobolka Banaadir kuwaas oo qaarkood hadda la weydiinayo dad damiin ka ah iyo in cadeymo ay keensadaan. waxaana aad u sii yaraatay is-aaminaada tan iyo markii uu falkaas dhacay oo waxaa jira kala shaki badan taasoo keenaysa in hay-adaha ammaanka ay wadaan howlgallo xoogan kuwaasoo mararka qaar guuleysanaya ayna kusoo qabanayaan dadka laga shakisan yahay. Muqdisho maalmihii u dambeeyay xaaladeedu waxay ahayd mid degan marka laga reebo howlgallada xoogan ay wadaan ciidanka ammaanka. arrintan fajicisada ah ee fanaankan shabaabka noqday ayaa inta badan dadka isticmaala baraha bulshada si weyn u wadaagayaan iyagoo la isugu dirayo messengerada. sidoo kale dadka facebookyada ay ku soo qorayaan sheekadu waa yaa la aaminaa haddii fanaan shabaab uu noqday. arrintan iyo wixii ka soo kordhay iyo xogaha kaleba halkaan ayaad kala socon doontaan. intaas ayaan rabaa in warbixintan aan ku soo gabagabeeyo. waad ku mahadsan tahay haddii aad halkan soo gaartay daawashada aad daawatay muuqaalkan. haddii channelka aad ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa in calaamadda guud ee subscribe-kaada naga iloobin sidoo kalena gambalaalka aad furato si warbixinada iyo barnaamijyada halkan aan soo gelino aad mar walba ula socoto. waad mahadsan tahay. Yo, boom. The thing goes.